بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نعلن لجميع المسلمين بثبوت شهر رمضان، حيث ثبت رؤيتها عالميا ومحليا. عالميا حيث أعلنت كل من دول الخليج ومصر واليمن وغيرهم من الدول بأن بكرة الجمعة بداية شهر رمضان، ومحليا كذلك حيث ثبتت رؤية شهر رمضان في كل من قرى وجير، وكذلك قرى تابعة لمدينة غاريزا. وبناء على هذا نقول هنيئا لجميع المسلمين بحلول شهر رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ويرضاه. galabta oo habeen jumca soo galay ah, caawa oo habeen jumca soo galay ah, taariikhda milaadiguna ay tahay 23 bisha afraad 2020 waxaa sugnaatay aragtida bisha Ramadaan oo caalamkana meelo badan laga arkay. dowlado badan iclaamiyeen sida Sacuudiga, Kuwait, إماراتك، يمن، بحرين، مصر، دولة فربضان إعلاميان. dalkan hadda aan joogno Kenyana sidoo kale iyaduna aragtideedu way sugnaatay, waa laga arkay. waa midda koobaad ee horta maanta waxaan helay macluumo saxsan oo sheegaysa bishii Shacbaan dhalashadeedii in magaalada Liboya Kenya in laga arkay habeenkii Arbacadu soo galaysay. macluumadaasi maanta ina soo gaadhay, waxaana xaqiijiyay sheekha imaamka ah ee magaalada, Sheekh Cusmaan Xade, oo laba ruux oo dadka masaajid ku tukado jamaacada kamid ah oo dad uu ku kalsoon yahay ka xaqiijiyay inay habeenkii Arbacadu soo galaysay ay bishii Shacbaan ku arkeen ama ka arkeen magaalada Liboya. taa markii la qabto maanta soddon buuxay ahayd. macluumada cusub markaynu qabanno waxaa labeeya magaalada Xagardheer oo raacsan Dhadhaab, ayadana nin la yiraahdo Axmed Daawud ayaa isaguna aan la xiriirnay oo xaqiijiyay in uu bishii arkay isagu shakhsiyan. waxaa intaa dheer magaalada Wajeer tuulo ka mid ah oo iyadana la yiraahdo Duqsi ama Duqso muxuu ahay oo basaad dhasheeg raacsan ayaa iyadana waxaa arkay imaamkii masaajidka tuuladaas iyo dad aad u fara badan oo dadkii meesha ku tukaday oo ilaa 20 gaadhaya. imaamkii baan la hadalay, sidoo kale culimo kale oo meesha joogtay oo khuruuj ku joogto tabliiq iyagana way noo soo sheegeen. meeshana bishii waa laga arko dad aad u fara badan ba arkay dadkii tuulada ku tukaday masaajidka ah. marka sidaas ama soddon buuxa ha noqoto maanta ama aragti toosaba ha la arko galabta, sidaas ay bishii uga sugan tahay aragtideedu dalka Kenya gudihiisa. caalamiyana waa taa aan soo tilmaanay. sidaas daraadeed inagoo arrimaha wax ku dhisayna, berri insha Allah tacaala oo jumco ah waa maalintii ugu horeysay bisha Ramadaan. waana soomaynaa insha Allah tacaala. caawa jumca bay inoo bilaabatay, berri oo jumcana insha Allah tacaala soonka inooga bilaaban doona. waxaan leeyahay, waxaan u tahniyadeynayaa dhammaan muslimiinta meel walbay joogaan. ilaahayga tabaaraka wa tacaala bishii barakaysnayd nabad inagu soo gaadhsiiyey. ducadii nabigeena sallallahu alayhi wasallam ayaan ku ducaysanaynaa. ilaahay tabaaraka wa tacaala nabadgeliyo
iyo ammaan iyo iimaan allah inoogu dhaliyo ilana tabaaraka wa tacaala khayrkeeda hayna waafajiyo ducadii nabigeena macnaheedu sidaa ahaa waxaan leeyahay marka hambalyo ilaahay tabaaraka wa tacaala tawfiiqda hayna waafajiyo bisha barakaysan khayraadka dhex yaalana ilaahay tabaaraka wa tacaala wax weyn allah inaga siiyo hana inaga aqbalo sidaas iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu